السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا لها وند والسلام يا ميل كستو دنيا دافيد kaga sugantiin marka ugu horeysa ilaahay ayaa mahad leh marka xigtana idinka ayaan idin mahadnaqayaa sida quruxda badan ee aad maaragtay channelkayga iyo barnaamijyada ugu xiran tihiin. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa oo mahad gaar ah u naqayaa walaalaha ay kala qayb qaata kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa soo socdaba barnaamijyadan la'aantoodna aanan maaragtay aanan wacyigelin soo gudbiyeen ummaduna aanay maaragtay wax ku qaadat aanay hesheen maaragtay ilo sidan oo kale oo maaragtay ay wax ka faa'iideyaan. aad baan idin soo dhaweynayaa waxaa inoogu casiban maanta barnaamijka walaal Soomaaliyeed. walaalkaasi wuxuu inooga sheekaynayaa ama inala qaybsanayaa ama inala wadaagayaa qiso isaga ku soo dhacday wacyigelin ah gaar ahaan ragga Soomaaliyeed aan rabo inay kuwaana qaataan sida sharafta badan ee quruxda badan ee uu yeelay inay yeelaan oo hablaha yaryar ay u asturaan markay dhibaatadu iyo qadartu ku dhacdo ay u asturaan. isagana waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu ajar iyo xasanaad ka siiyo. walaal waan ku soo dhaweynayaa ku soo dhawo barnaamijkayga waan dhawahay inoo bilow walaalo jazakallahu khayr qisadii. waa bilaabayaa luley waxaa dhacday hadda ka hor gabar yar oo qadarada oo jirta saan malaynaya qiyaastii adiga 13 ama 14 meelaha jirta ba qolo qaraabadeed bay la joogtay adiga kadib qolo qaraabadeed la joogtay ay ma aqaan hooyadeed siday kaga soo tagtay marka hore laakiin qaraabay la joogtay ayada aqrab dhow ay yihiin bay la joogtay marka gabadha adisa ii sheegtay gabar kale ta aan wanaagsaneyn bay ku daba xiratay marka way wado meel oo kulliba wiilal kaliya ay degan yihiin bay geeyeen adiga birooyin bay meesha ku haysteen say ii sheegtay marka gabadhi uur bay qaaday adiga horta say ii sheegtay ayada hal bil bay u tiri hal bil baa meesha ku jirnay tiri uur bay qaaday uur markay qaaday waxay ka cabsatay marka inay cidii ku laabato marka magaalo kale iska soo aaday magaaladii kale markay soo aaday wax kaga soo horeeyana ma jirto waxay garanaysana male tii marka cid bay imaatay cidii wax yar markay joogtay arkeen ay uur leedahay bay iska eriyeen qolo kale u tagtay kolba qolo say ugu tegaysay mar dambe gabar خير الله سيء جبر باوحي ترى دور بالكالة جوري يكون ولا هذه جبر دي جوري جبر يكون ولاد ماشي يكون الشيء مركا هذه قدر المركا يلاو بلاد أو كله تمر يسوي بيتري ولا لي يعني قوما هاين كارو ضد كان قود حمر يا مركا حق يهوي غادي كان قود ريا gabadhi hadii waxay istiraad wixii waa wax yar waxay istiraadii xaq hooyada lagu diro ama hooyadii aad canugan xambaarsan halka aad geyso ama dibka la kulanta marka gabadhi waxay tiraahday ma hooyada liima diray daade hooyada lagu dirin cirkaada roobku bay tiri waxay tir gurigeen iiga bax orod meesha rabto qabo gabadhi meesha way ka guurtayba Allahu akbar haye ayagana gurigii bay iska dhex fadhiday meel ay qabatay garan kari waysay wixii dariiskeedna hada sheekadeedii bay la socdaa inay hooyada diidanaatan hooyada loo diraba diiday maxaa laga soo dhaweynayaa adduunyadiiba ku cakirantay markaas gabadhana waxaa intay uurka qaaday markaa dhexdood way fikiraysay weligeed ma ayan shanlaysanin ma ayan maaragtay aad dhib badan bay dareemaysay rafaad badan baa ka muuqday rafaad badan baa ka muuqday gabadha marka cidii wixii dariskayna waxay dhaheen naagtan hooyadeeda diiday qof kastaba xanaaqo xaqa kula dhacay marka meel ay aaday garan way intay tagtaa meesha dacanug cid wadayaaba ogolba anigu marka meesha kama aan dheereen gabar oo ay soo sheegtay tiraade gabar noocaas aan soo arkay oo waliba wiilkeedii lala balansan yahay in laga qaato la rabo dhiibto haye marka wiilka xagee yisiinaysi
waxay siinaysaa qolaha de waxaa la dhahay adiga meelaad ku korisa ma haysid canugan iska keen haye mana soo sheegan kartid allahu akbar haye anigi waxaa yar qiira ay daawatay waxaan marka dadka sidaa ku leh Soomaali bay ahaayeen walaal ha haye Soomaali bay ahayd laakiin naagta markaas ku tiraaday Soomaali oo adiga ma aqaano ma Soomaali dhab ay ahayd ma ogi mase qolo kale taadi Soomaali u yar eeg bay ahayd say gabadha ii sheegtay markaas waayahay laakiin Soomaalida caadiga ma ay ahayn waanta markaas ku tiri waayahay marka islaantana meel kale ay ka imaatay meesha diriska ma ay ahayn meel kale ka imaatay wixii rabtay waxay maqashay gabadhan oo wiilka iibinaysa wax soo kala ay rabtaa inay cida iskaga dhiibto meel ku haysay weysay wax soo kala taa waayahay marka calaa kulli xaal anigi markaan maqlay kaaligi baan ku yiri gabadhi markaan u imaad gabadha waxa ka muuqdo rafaad markaan arko waa yaabay waayahay marka gooni baan oo dhinac baan oo fariistay waxaan ku yiraahday anigu nin ma yihiin wax haystay meel yar baa shaqo yar aan ka haystaa haye noloshada dhan ma kaafin karo laakiin haddaan qol yar ku kireeyo maxaad ka qabtaa oo wiilkaadana meesha ku haysato waayahay haye bay tiri haye marka calaa kulli xaal waxaan ku yiraahday hooyadaadi way ii sheegtay meeshii ku nool yihiin haye waxaan ku yiraahday sidii adi meesha hoosha ay u dhacday markaasaan ka wareystay wax kastaba way ii sheegtay waayahay marka waxaan ku yiraahday ani hooyada inaan la hadlaan rabaa waayahay gabadhii hooyadii inaan la hadlaan rabaa markaan iri way jirka isgashatay oo waxay istiraaday waa hooyada haddii lagu sheego show waa ma aragtay waxaa yar adii qab bay dareentay waayahay marka waxay tiri baa iska dhameeysan oo hooyada iska dhaafo haye marka waxaan ku yiraahday waxaas ma jiraan aniga hooyada iyo dadkiina inaan arko inaan dawagaas way oo taarikana way jireen telefoonadana way jireen waayahay marka meesha taarikii baan aadnay hooyadii baa la dalbay maalintii dambe la soo helay hooyadii mar imaatay marka aniga la hadlay waayahay waxaan ku yiraahday gabadhaadii heble ahayd halkan baa joogtaa nin baana guursaday meeshan ku guursaday ninkiina hadda wuu furay yani inaan ayada waxay qariyaan doonayay ninkiina wuu furay anug yar bay wadataa haddana anaa rabo inaad isiisaan rabaa gabadhaadii allahu akbar kabiira haye marka gabadhii markaan saa dhahay wajigeedii hataa farxadba marka hore waxay isleeyahay ama wax kale sheegaayo gabadhii aad bay u faraxdo oo hooyadiina marka aad bay u faraxday adiga waxay u tiri waa isku noqonaynaa anaa idin soo waceen adiga ay kadib ayadii wiil walaalkeeda isoo waceen adiga waxay u dhaheen iska dhamaysta hooshina haye waa lagu siiyey waa lagu hibeeyey waayahay adigu markii dadkii baaba na caawiyeenba haye guri baan iska degnay gurigii markaan iska degno adiga bilo waxaan joognaba gabadha waa isbedesho marka ma dadkii jaarka ahaa mise ehelkaaga bay idin caawiyey mise dadkii jaarka ahaa wixii gabadha gabar oo meesha in badan yar joogto oo laga garanayo bay ahaayad oo la garanayo sax oo hadda marka hadda dambana hataa oo ay diiday inay hooyada loo diray hataa dadka ay aad isula dhaxmareen ay dhaheen tan waa nolosha ka dhacday yani haye marka ayadana hadda wax kale uma diidaynin waxay u diidaysa uun haddaad hooyada oo la tagta adoo canug xambaarsan waa xaggaad ka keentay ku waran haye de ama ciddii uun dhib kaaga imaadaa unbay u islaheed waa run adi calaa kulli xaal gabadhii way faraxday sidii baan ku aqalgalnay wax yar kadibna gabadhii way isbedeshay waayahay de waxa bay noqotaba gabadhaha ugu qurxoonba meesha allahu akbar ila dhibkii iyo rafaadkii iyo balanbalkii bay ka raysatahay
haye aniga hataa marka hore gabadhan u gargaar baan lahaayo gabadhii waxaabay noqotay gabdhaha hablaha ugu qurxoonba marka jacayl mehe waxaaba i galay babaal aad marayn karayn cajaayib haye adiga calay kulli xaal wax yar kadib bilooyin kadibba kuwa dariskeena ah baa gabadhii motor weyn saareen haye dawladna waa iska caruur oo wax weyn ma aha ama 14 bay jirtay ama 13 wax saa oo kale taa la ilaaha illa allah wa baby haye khaasatan in maaragtay afmushaar baa helay oo yiraahday ninkan wax baran ma haysto adigoo quruxdan leh haye maxaa adiga subsaa u wadi wax qaasi ahaan la galay kadibna adiga wuxuu galay inuu xiriirso gabadhii inuu la macaamilo haye marka sheekadii way xalmaatay anigii waxa ka warhelay dariskii way ka warheleen hawshan inay meeshan wax ka socdaan aniga kama warqabo haye aniga yar qariyay kadibna wiil yar oo idda joogay baa u adkeysan kari waayay wuxuu yiraahday annagu daris baan nahay waxaan oo kale waa la soo cadaabaya ninkan waa inaan u sheego cidiis wixii ka socdo way maaday wuxuu yiraahday niyow gurigaadii ninka hebel baa ku jiro deeshana cayaartan waa iska socotay bilooyin baa iska socotay guriga markaan imaaday guriga oo iskula jiraan oo imaaday haye markaan gowgowsiiyo asigii baa kasoo gooday kadib asigii baan u galay iyadii baan u galay waxaan ku yidhaa waxaan maxaa kugu wataa ood noocaan u samaysay way iska oysaad waxay tirahdaan waxa way ugu dhaceen way iska dhacday de waxaan ku dhihi markasta way iga dhacday maa dhehaysataa adduunya saa kuma soconaysa wax kalan kaa soo dhaafay aniga intii aan ayada soo xareeyay dadkii dhan naftaaba ii keena waxay u dhaheen naag nolosha ka dhacdaad guursatay orni oo waxba isku fali maysid adigii waa aniga hata aad baa liii gelgelayba oo lagu colaadiyey haye marka de haddii haddana waxaan ay la soo baxday waxaana is idhaahdee shabad kale bay kugu noqonaysaa waxaan ma u fiicneen wixii la sheegayay baa dee dadku ku sheegayeen baa iyagana u hirgelaya dadkii bay ii jebisada haye allahu akbar caruurnimada haye marka waxaa ku yiraahday hooyadan kuu diraya waayahay hadda way aqbasho marka adiga calaa kulli xaal hooyadeedii askaga diray saasaan u diray haye adi dariskii baa nagu soo orday oo waxay isku dayeen inay naxaliyaan hataa ninkii bay keeneen oo wuxuu dhahay mar dambe ku noqon maayo waxaas hadda way iga dhaceen ani hataa gabar walaashiisa isku dayday inay maaragta isku dhabar jabiso isaban xirto haye dee waxaan ku yidhaahda meeshan iima qurqursamayso mar dambe sax marka adi calaa kulli xaal gabadhii waan diray hooyadeedii baan u diray meeshay tagtay calaa kulli xaal meeshay igala soo hadashay hooyadii baa ila soo hadashay marka hooyadii waxay jeclaatay inaan gabadhii ay soo celiso haye marka waxaan ku yidhaahday hooyo gabadh waa jeclahay laakiin ha igu soo celina dhe ma rabo ma hayn karo ma dhaqan karno sax hooyadina waxaa waa yar xumaatay markaan saa dheeraaday si kale waxaa ugu sheegan waan garan waayay ilaa aniga marka hore waxaan ku yidhi gabadhaada nin kalaa guursaday moogtahay waxaanay keentana waa dhihi kari waayey adi sidii baan ku kala tagnay kadibna ma arkin sheekadina halkaa bay un iiga eg tahay maasha allah tabaarakallah markaa maxay ahayday adigu waad jecleedo gabadha adigii waan jeclaaday markii aad kala tagteen al'aankan qalbigay kama bixinba gabadha laakiin hadde maxay ku tirsan tahay jacaylkii baa ilaa hadda ku haya dib ma u raadisay oo ile kolley weynaatay oo isbedeshay oo caqliyaysatay maya ma raadin dameel dheer bay jirtaayo aniga ma raadin marka maxaad kula talinaysaa walaal nimanka hablaha yaryar xumeeya
kuwa maxay ahayd markay sidaadaas oo kale arkaan inan yaroo balanbalayso oo laga caqli badiyay oo la soo xumeeyay aan asturayna iyagii ama kasii faa'iideysta ama ku sayaxo oo dee dadkii maaragtay ceebtii sii fidiya maxaad adigoo dee caqli ahaan iyo nin ahaan iyo waayo aragnimada u leh maxaad iyagana ku odhanaysaa horta waxaan dhihi lahaa waana guud maaha gabadhaba maaha laakiin waana guud walaalaha nimanka Soomaaliyeed maya waanada guud waxa way horta gabar walaasha inaad fara xumayso adiga walaasha in la fara xumeeyo ma jeclid laakiin gabadha kale inaad ka soo qaado walaasha oo kaleeta runtii moogtahay waxa dhibka wada waa ragga wax dardaara wax doonta gabdhaha dad wax ma doontaan صح markay khaasatan markay ilmaha yaryar yihiin shahwana way wadaa aqli yarina way wadaa aqlina male way isku xakamayso way isku xakamayaan meelahaas oo kale inay kaga faa'iideystaan haye marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaaladiina ka daaya waxaas oo kaleeto waxaas falxumada kula dhaqaaqina midda kaleeto waxaan dhihi lahaa ninkii qof noocaas oo daryeelo ha la soo dhaweeyo yaanan buuq kale lagu furin sida hadda aniga markii qabsatay oo kaleeto صح weli waxaa iigu darnaa dadka aniga ii danaynaaba iigu darnaa haye daaway gaartayba marka horeba asagaa ka dhalay allahu akbar haye anada qoomba oo magaalo kale sheekad ka dhacda ma baanada qoom may haye dawaa ku salaamaya lale alla yasalamak walaalaad iyo aad baad u mahadsan tahay jazakallahu khayr waanadaas iyo maaragtay wacyigelinta quruxda badan iyo ajarka adiguna aad soo shaqaysatay gabadha yar ee miskiinta ee la balanbalinayay aad u noqotay maaragtay il u noqotay meel ay ku soo horeetay aqal geysay oo bil u qortay oo meel dejisay oo murugadii iyo maaragtay xanuunkiiba ka dulqaadiyo kurbadii adigana ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo iyadana ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu meel khayr qabo mariyo inta nolosheeda ka hadhay waxaan kaloo leeyahay walaalaha Soomaalida nimanka gaar ahaan gabdhaha yaryar ee aad xumaynaysaan ee aad kufsanaysaan iyagoo aan qaan gaarahayn oo 3 jir imika qaar hiba ay maartay meediyaha ku jiraan qaar 14 jir qaar 15 jir hablaha si kastaba ha noqotay da kastaba ha ahaatee ilaahay ka baqo ka waantooba adigoo xalaal helaya xaaraan ha doonan haddii aadan awoodina uba soo bandhigo waxaad tiraahdaa islaamka dariskaaga iyo ehelkaaga u soo bandhigo waxaad tiraahdaa gabadhaas aan rabaa halay xalaaleeyo allihiin ka baqa maanta maalinan ahayn baa laydin weydiinaya maanta maalinaad ka itaaliyartihiin oon dib loo soo noqonaynin abadana ayaa laydin weydiinaya marka ilaahay ka baqa ilaahay ugu tura hablaha yaryarna waxaan leeyahay iyo raggan idin sirin iska ilaaliya oo iska ilaaliya oo iska ilaaliya oo ilaahay irsaaqad dhaanta weydiista intaad nin intuu idin calan waleeyo aad hoosta ka geli lahaydeen shaaqiyad noqda shaqaysta meelaha maxay tahay xamaasha ragga iska ilaaliya rag waa cadow idin ximaayaan halbowlaha idin jarayaan hadhowna way idin kaga cararayaan marka hablaha yaryar iyo kuwa dhexe iyo kuwa waaweynba waxaan leeyahay si xun yaan laydin kaga faa'iideysanin guurka ilaahay baa baneeyay ilaahay baa xalaaleeyay guurkiina ku adkaysta ninka idin yimaada ee idin soo doonta waxaad tiraahdaa xalaal gurso waxba ha haysanin gidaarkaasan kula seexanaya salliban kula seexanaya ee xalaalayso ilaahayna ajar buu idin ka siinaya waan isku kinirsaaqaya intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka aadna waan uga mahad celinaya walaalka inala qaybsaday sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu